بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل كان وحن كسو قدبنا عشر كاني كنتنات فهم كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام waxaan soo dhammaynay casharkeena u dambeeyey dagaalkii la dhihi jiray ghaswatu laxzaab nimankii isi soo bahaystay ee madiine ku soo duulay ee 10,000 oo ciidanka ahaa ee doonay inay madiine qabsadaan oo islaamkana dabar gooyaan iyo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jebiyey ayadoon dagaalba dhicin ayaan ka soo hadalnay maanta waxaan ka hadli doonaa ghaswada la yiraahdo ghaswatu bani lmustaliq ama lagu magacaabo bighaswati lmuraysic qolada la yiraahdo reer bani mustaliq iyo islaamka dagaalkii dhex maray wuxuu ahaa sanadkii 5aad sida raajixa ah qisooyin waaweyn oo dhex dhacayna waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala dagaalkan sababkiisu wuxuu ahaa markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo soo sheegay ninkii madaxda u ahaa reer bani lmustaliq qabiilka la yidhaahdo ee la dhihi jiray xaaris binu abi diraar inuu ciidamo fara badan aruursaday oo uu doonayo inuu islaamka weeraro iyo inuu islaamka dabar gooyo markii nabigu u maqlo calayhi salaatu wasalaam nabigu asagoo ciidamo wata ayuu baxay wuxuuna tagay meesha la yidhaahdo maa-ul muraysic ayuu ayagii laftigoodii kula kulmay halkaasna dagaal ayaa dhex maray islaamka iyo gaaladii sababtoo ah nimankaas ciidamo fara badan ay diyaarsanayeen oo rabeen madiine inay ku duulaan haddii islaamku uu sugana hadda madiine markii la isku qabsado wax damboo harayba ma jiraan oo halkii meel ay deganaayeen islaamku ah meeshaas markii ay dagaalku dhex maray islaamkii ayagiina ilaahay waa jebiyey nimankaas gaalada ah intaas ka bacdi waa ay kala carareen xoolahoodii xataa waa ay ka carareen asxaabta ayaa nabigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam islaamka waxaa dagaalkaas raacay oo la socday dad badan ee munaafiqiintii ka mid ah oo aan awal dagaalka geli jirin ayaa markaan raacay sababtoo ah waxa weeye inay qaniimo damcayeen oo islahayn ah wax soo heshin iyo inay islahaayeen yaan la idin ceebayn marka markii dagaalkan uu dhacay ka bacdi masaa'il fara badan oo islaami ah ayaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam intii uu dagaalkan ka soo socday iyo intuu kusii socday waxaa ka mid ahaa asxaabtu waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama ay jihaad ku jiraan dumarkiina ay u baahan yihiin waxay yidhahdeen nabiga ilaahayow annagu dumarkii markaan u tagno inay uuraystaan ayaan ka baqaynaa annagiina dagaalan ku jirnaa marka xaaskii markaan u tagno waxay leeyihiin markii aan biyihii ay naga imaanayaan ayaan banaanka ku daadinaa biyihii si aysan u uureysan maadaama hadda xaalad adag aan ku jirno rasuulkii ilaahay ow ma bannaan tahay taasi marka ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa calaykum anlaa tafcaluu maa min nasamatin kaa'inatin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa wahiya kaa'ina wuxuu yihi waxba dushiina ma ahan taas inaadna samayn oo waxa weeye haddii aada biyaha banaanka ku daadisaan iyo haddaadna ku daadinba waxba ma ay celinayso waxna ma abuuri karto maxaa yeelay naf kastoo ilaahay ugu talagalay inay abuuranto adinkoon ogeyn inay abuurmaysaa ilaa maalinka qiyaamo ciddii ugu talagalay ilaahay inay abuurmaan way abuurmayaan axkaam kala duwan ayay culammadu meeshaas ka qaataan marka xadiidkaas wuxuu caddaynayay ama xadiid kaloo uu asxaabigii warinayay wuxuu yidhi kunnaa naczil waalqur'aanu yanzil waxa weeye markii oo aan dumarkeenna u tagno
aan shahwadii ay naga soo dhowdahay biyihii banaanka ayaan ku daadi jirnay qur-aankoo soo degaya oo macnaha taasi waxay tusinaysaa inaysan xaaraam ahayn. marka culammada islaamku waa isku raacsan yihiin taas inaysan xaaraam ahayn. haddii xaaska iyo ninkeedu ay raalli iskugu yihiin xaaraam ma ahan, laakiin waxaa khilaaf ka jira markii biyihii aan la daadin kabacdi oo macnaha caadi ay iskugu tagaan, biyihii ay raximka galaan kabacdi ma la iska soo saari karaa oo inay biyaha intay manida yihiin ama inta ay xinjirta yihiin ama ay inta cadka hilibkaa yihiin ma iska soo saari kartaa islaamtu? taas ayaa culummadu ka hadlaan. sida raajixa ah madhabkeena shaaficiyada waxay leeyihiin culummadu yaxrumu atasabubu biilqaa'i nutfa bacda istiqraariha fi raxim waxaa xaaraama in qofka uu sabab u noqdo inuu biyihii uu iska soo daadiyo manida ahaa mar haddii ay raximkii galeen kabacdi. haddii ay xinjir noqdeen oo manidii sii dhaafeen iyo hadday cad hiliba noqdeenna waa kasii baaba owlo, adugu masale khilaaf badan ku jiro, laakiin xukunkaas ayaa culummadu ka yidhaahdeen. intaas kabacdi dagaalkaas markii laga soo laabtay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam soo laabtay ayaa waxaa dooday addoon uu iska lahaa sayid cumar binu khadaab oo la dhihi jiray jahjah binu saciid alkhifaariy iyo nin kale oo la dhihi jiray sinaan binu wabar aljuhaniy ayaa dooday oo dood ay dhex martay. markii ay doodeen biyihii muraysiic ayayna joogaan markaas, waxaana la socda koox asxaabtii ka mid a. markii ay doodeen ayaa ninkii sinaan binu wabar aljuhaniy wuxuu yidhi dood culusaa dhex marto ay ku sigteen inay isdilaan labadood. marka sinaan binu wabara wuxuu yidhi yaa macshar alansaar, waree ansaarow, macnaha qabiilkiisii u qayliyey si loogu soo baxo. jahjahna wuxuu yidhi yaa macshar almuhaajiriin, waree muhaajiriinow. marka waa labadoodiyaa nidna ansaar u qayliyey, nidna uu wuxuu u qayliyo u yeertay muhaajiriin. waa fidno, waa qabyaalad meel la iskugu yeertoo kale. markaas ayaa waxaa maqlay arrintii munaafaqii weynaa cabdullaahi binu ubay ibnu salool oo asxaabta hadda ku dhex jira ayaa maqlay oo ansaarna ka tirsan, macnaha qabiil ahaan ka tirsan, isagu ansaari maahayne waa munaafaqu ahaa. markaas ayuu xanaaqay, markaasu wuxuu yidhi muhaajiriin nimanka la yidhaahdo waa nagu soo haajireen, magaaladeennii qabsadeen, waana soo kor dhoobteen, haddana maanta miya ay annaga macnaha doonayaan in ay nala dagaalamaan? anigu wax kale uma arko, kaliya waxaan u arkaa hu yidhi samin kalbaka ya'kulka, eygaaga cayile ha ku cune, eygaaga cayile ha ku cune ayaa u arkaa hu yidhi. markaan dhaqaalaynay ayay saas yeeleen u yidhi. markaasuu wuxuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal, haddii madiine aan u laabano keenna oo maaragtay sharafta badan ayaa madiine ka saari doona kan dulliga ah. markaas wuxuu ka wadaa aniga iyo dad asxaabtayda ayaa sharaf leh, kan dulliga badan uu leeyahay waa ka saari doonaana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. bal u fiirsa munaafaqaas. warkaas ayuu yidhi. hadalkaas waxaa maqlay zayd binu thaabit, zayd binu arqam asxaabigii la dhihi jiray ayaa maqlay. markii uu maqlay nabigu u tagay calayhi salaatu wasalaam wuu u sheegay fidnada munaafaqaas weyn uu horinayo. waxaana nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam sayid cumar binu khadaab. markaas ayaa wuxuu ku yidhi sayid cumar yaa rasuula allah mur bihi cabaada bna bishir falyaqtulhu. rasuulka ilaahay cabaad binu bishir amaruu yihi oo tala yacni ogolaasho sii ha dila ninkaas munaafaqa oo gaalka weyne. markaas ayaa nabigu wuxuu yidhi fakayfa yaa cumar idaa taxadatha annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabahu. cumarow sidee yeelaysaa huu yidhi, hadhow soo dadku kuma sheekaysanayaan nabi moxamed asxaabtiisuu dilaa. munaafaq ninkan ha ahaado ha nagu dhex jiro, laakiin haddana dhanka kale
kor asxaabii uga egya marka asxaabtiisuu dilaahaa laleeyahoo dicaayada la faafinaya huu yiri mayuu yiri ma dilayo nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama dagaal qabaleeye la iskugu yeertay wuxuu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam caqligiisii iyo maskaxdiisii badnada ilaahay siiyey dadkii wuxuu ogeysiiyey geedi iyo in la guuro iyo in safar la galaba markaa nabigu wuxuu rabaa calayhi salaatu wasalaam in qof kasta ay hawshiisa ku mashquulo oo aanba arrimihii dhacayba lagu mashquulinba marka nabigu calayhi salaatu wasalaam saacad uusan guuri jirin waqti uusan weligiis safrin ayuu safarkii galay dadkiina waa guureen nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinkii oo dhan ayuu la socday maalinkii oo dhan uu socday ilaa ay galabtii gaareen habeenkii haddana socday ilaa casir ay subaxdii waagu u baryey maalinkii kalu haddana uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu socday ilaa qoraxdu ay kululaysay oo dadkii daaleen oo aanba dagaal iyo warba loo hayno aysa asxaabtii dhexdooda isku noqon karin ilaa fitna la hurinayahoo munaafiqiintiyaa raba ansaar iyo inay isku huriyaan muhaajiriin oo ka faa'iidaystaan jaaniska marka kabacdi ayuu nabigu uu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam nabigu ma daaline waa uu degay ayadoo asxaabtii iyo ay daaleen oo qof kastaahi uu leeyahay hal mar kale ayaa dhinaca dhulka kuu dhiga markaas ayaa la seexday nabigu arrintaas wuxuu u sameeyaa leer wuxuu rabay inuu dadka ka mashquuliyo sheekadii shalay dhacday hadalkii marka zayd binu arqam rumayn ilaahay uu u rumaynayo maadaama zayd binu arqam uu soo sheegay warkaas oo cabdullaahi binu ubay uu ka soo sheegay ayaa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu ugu rumaynayo zayd binu arqam ilaahay waa ka kula suuratu lmunaafiquun yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxay munaafiqiintu leeyihiina ilaahay yidhi haddii aan madiine u laabanno keenna sharafta leh ayaa madiine ka saari doona kan dulliga ah oo nabigay u jeedaan dulliga munaafiqaas waxa uu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi sharafta ilaahayaa iska leh sharafta ilaahay rasuulkiisa iska leh sharafta muuminiinta iska leh ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta ayaa sharaf iska leh laakiin munaafiqiintu ma ogu yidhi ilahi subxana wa tacaala intaa kabacdi cabdullaahi binu cabdillaahi binu ubay ibnu salool cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool wiilkiisiio asna cabdullaahi la yihahdo ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markay madiine usoo laabteen kabacdi markaas ayaa wuxuu yihi cabdullaahigii oo wiilkaahi rasuulka ilaahay aabbahay horta waa oga inuu munaafiq oo yahay oo gaal ah oo uu ku dhibayo inaan la daynaynna waa ogahay oo ninkaas uusa sii noolaadiine doonin haddii ay suurtagal tahay ninkaas in la dilayo gaalka oo aniga aabbaha ii ah ee adiga ku dhibay rasuulka ilaahay aniga soo dilaya ii fasax anigaa soo dilay maxaa yeele waxaa ahaayuu yidhi nin aabbihiis aada baari ugu ah iyo waalidkiisa marka hadhow haddii qof kale uu dilo waxaa dhici karta inay aniga saameyn ugu yeelato qofkii muuminka ahaayoo dilay aan inta arka hadhow aan ka aargoosto inta isceli waayo ee aan noqdo qof muslima qof dilo naarta aan galo marka haddii aan la daynayn aniga ii fasaxu yidhi markaas ayaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bal natarafaqu bihi wa nuxsinu suxbatahu maa baqiya macnaa maye ma la dilayuu yihi waa u dhimrinaynaa waa u naxariisanaynaa yacni saaxiibtinimadkiisa hagaajinaynaa inta uu nala joogu iska dhaafu yihi maba la dilayo marka sayid cumar waatuu markii hore yiri rasuulka ilaahay madaxa ha laga jara ninkaas ee nabiguna uu yihi asxaabtiisu u dilaa ayaa laleeyahay marka sayid cumar ayaa arrintii ka shalaaya wuxuu leeyahay wallaahi calimtu la amru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam acdamu barakatan min amri ilaahay baan ku dhaartuu yidhi waxaan ogaaduu yidhi in nabiga taladiisu calayhi salaatu wasalaam ay ka barako badan tahay oo ka wanaagsan tahay aniga taladayda maxaa yeele anigu waxaan soo jeediyuu yidhi ninkaas in madaxa laga jaro laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asxaabtiisa nin dilay ayaa noqonayaa sidaa darteed lama dilayo ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sidaas ayaa munaafiqiintu ayay asxaabta u dhibeen oo ay u wareeriyeen waxaa jira marka qiso kale oo aada u cajiiba oo dagaalkan dhex maray dagaalkan dhexdiisa dhacday
qisadaas waa qiso caan ah oo loo yaqaano qisatul ifki ama xadiithul ifki, arrintii been abuurka oo waxa weeye sayida caaisha been abuurka ay ku been abuurteen ayay ahayd. qisadaas haddii aan ka sheekayno sidii ay ahayd si kooban haddaan u dul marno, nabigu calayhi salaatu wasalaam duulitaankan markuu u baxay iyo dagaalkan, nabigu wuxuu samayn jiray markuu meel aadayo xaasaskiisa mid ka mida ayuu wada jiray, wuxuuna ku wada jiray qurco iyo qorituur, waa u qorridu jiray waa u qurcay jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka qurcadii waxay u soo baxday caaisha radiallahu canha. caaisha ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka safarkan la saaxiibtay. asxaabtii iyo nabigu marka inta soo tageen, marka ay soo laabteen meel dhexa degeen, ayaa meeshii la seexday. markii la guurayo meeshii laga guurayey ayaa caaisha waxay aaday banaanka xaaja gudasho, ilaa suuli ma laho meeshii waxa weeye waa meel safar lagu degay, marka banaankii xaaja gudasho u aaday. markii ay ka soo noqotay ayaa waxay caaisha weyday kuusheedii ayay weyday, kuushii oo dumarka u xireed ayay weyday. kuushii markii ay weyday caaisha waa ay laabato, waxay tiri meesha ay kusoo xaajo gudatay ayay malaha kaaga soo go-day. markaas ayay halkaas aaday. caaisha markii ay raadisay intii ay ku maqneed ayaaba safarkii nebigu galoo la guuray. maxaa yeelay waxaa dhibaatadana keena waxay ahayd, waxaa jira waxa la dhaha hawdaj oo waqtigaas dumarka la saari jiray, oo mathalan ba awrta ayaa la saari jiray, laakiin awrta alaab guro ah oo loogu talagalay ayay dhex galayaan, markaas ayaa ratiga la saaraya. marka caaisha waa ay yaraad, gabar yaroo fudud ayay ahayd. dadka oo u rarayay nabiga calayhi salaatu wasalaam neefkii geel ahaa ee caaisha saaraana rag xoog lahay ahayn. marka waxay moodeen caaisha inayba ku dhex jirto, iyaduna bannaankay ku maqan tahay. markaas ayay inta qaadeen ratigii saareen. markii ay saareenna safarkii waaba galaba, waaba la tegay, waa la guuraba. caaishoo banaanka ku maqan oo kuushii raadinaysa, ayaguna ay moodayaan in caaisha hawdajkan ay ku dhex jirto. caaisha way soo laabatay, meeshii cidlaahayba timidba. meeshii cidlaha markii ay timid caaisha radiallahu canha, waa ay ogaatay in la tagay. maxay samayn kartaa marka waxay tiri waxaan ogaaday in la iwey doono, marka haddii la iwaayana meeshii ugu dambeydoo la iisoo raadinayo waa halkii la iiga tegay. marka meeshaydii inaan fariista wey, haddaan aniguna tago dhaqaaqo meel kala aado waa la isweynaya. marka bartaydii aan fariistay tiri. meeshaydii markaan fariistana waaba ku gam oo indhaha isgalay tiri anigoo meesha fadhiya. waxaa jira marka nin asxaabiya oo la dhihi jiray safwaan binu mucadal oo safarkii ka haray. safwaan binu mucadal marka asagu meel dambe gadaalu hurdaa la hartay. ratigiisiiyuu soo rartay. marka uu soo rartay wuxuu arkay qof meeshii fadhiya, waaba uu fiiriyaba, waaba caaisha xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasna waxay ahayd markii xijaabku, aayadaha xijaabku ay soo degeen oo gabdhaha mumineedkaa la amray inay xijaabtaan, laakiin safwaan caaisha intaa xijaabku soo degin u arki jiray. caaisha marka waxay tiri anoo indhaha isku hayo hurdaya ayaa safwaan i arkay. markaasuu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, zawjatu rasuulillah. waa uu istirjaacsaday, inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun yihi waa xaaskii rasuulka. hadalkaasaa maqlay tiri, aan ku kaca. hadalkaas markii caaisha ay ku kacday, safwaan waxay tiri hadal dambe ima weydiinay tiri. ratigii fariisiyey, waa aan koray ratigiisii. hadal dambe ka hor iyo kabacdina ima weydiin, sidiiyuu ii qaaday tiri ilaa aan safarkii ka daba tagno. safarkii aduu markii aan ka daba tagnay, halkaas aan tagnay kabacdi waxaa bilowday qisadii oo munaafiqiintu ay samaynayaan been abuurkii iyo ifkigii. waxaana been abuurkaas faafiyey munaafiqii weynaa ee cabdullaahi bin ubay ibnu salala ayaa faafiyey. marka oo wuxuu leeyahay caaisho iyo asxaabigaas rasuulka ee caaisho soo qaaday ayuu isku tuhmayaa, oo uu rabaa inuu ka abuuro been oo yidhaahdo zinay galeen, ilaa waa munaafiq gaal ahoo asxaabtii ku dhex jira. marka waxaa arintii laakiin lasii faafiyey
waxaa arrintii lasii faafiyey dad asxaabtii ka mid ah oo hadalkii rumaystay. waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo misdax binu uthaatha, waxaa ka mid ahaa xasaan binu thaabit, waxaa ka mid ahaa xamna bintu jaxsh. waa la jeedlay kabacdi xadaa laga ofiyey. marka warkiyaa la faafiyo caaisha inay dembiba ku dhacdaba, munaafaqaasaana tawaliye arrintaas. ilaahay qur-aanka soo deji doono ku bari yeeli doona. caaisha marka waa ay xanuunsatay markay madiino timid, ayadu ma ogaba wax jiraba. warkan waa la isla dhex maray, waa la faafiyey, laakiin caaisha wax wara kama haysaba. markaas ayaa madiina o dhan isla dhex qaaday. hal bil ayaan xanuunsanaaya tiri caaisha. xadiis bukhaariya wey, qisadan dhan waa xadiis bukhaari ah. marka waxay tiri sidaan u xanuunsanaa anigu war ma hayay tiri, laakiin nabigaana waxaana ka aragay tiri sidii hore ii ahaa. oo nabigu markuu gurigeenna yimaado oo hooyo aabbo guriga ugu yimaado, nabigu wuxuu leeyahy kayfa tiikum, see gabadhiinu tahay, gabadhiinaa see tahay. sidii kaleo nabiga aan ku arki jiray raxmadii badneed iyo qaabkii kaleo ila dhaqmi jiray waxo dhan kuma arkay tiri caaisha. marka waxaa dhacayay tiri anigoo sidaas xaaladdu iska tahay oo aana ogeyn, laakiin kaliya aan arko nabiga in isbedel uu ku jiro, aanana war haynba waxa dhacay, ayaa waxay tiri caaisha radia allahu canha, maalin maalmaha ka mida waxaan israacnay tiri ummu mistax gabadha la yihahdo oo ninka mistax bin uthaatha la yidhaahdo oo waxaan wax ka faafiyey hooyadiis ayaa israacnay tiri. waxaan isku raacnay tiri maadaama suuliyaal iyo aana lahayn meel xaajada lagu soo guto, banaanka duurkan wada aadnay tiri. banaankaas hore inaan kusoo xaajo gudano oo toylad iyo suuli ma haysano ilaa banaanka markii aan aadnay waxay tiri ayaa ummu mistax xarig dhexda ugu xiraa ayay lugta inta suratay ku kuftay. markii lugta ay inta suratay ku kuftay ayaa waxay tiri tacisa mistax, alla mistaxa hoogayay tiri. mistax ayaa hoogay. markaasaa waxaa eriyey tiri an bi'sa maa qulti atasubiina rajulan qad shahida badra. wax xun ayaa tiriye ma nin beder xaadiray, dagaalkii beder nin ka qayb galay miyaad caynaysaa hadda? markaas ayaa waxa tiri miyaada ogeyn waxa uu yiri ya maxaa yeele mistax wuxuu ka mid ahaa dadka waxaan faafiyey soomaan. caaisha waxay tiri miyaada ogeyn, ummu mistaxa waxay igu tiri miyaada ogeyn waxa uu yiri. markaasaa iri tiri maya. markaasay tiri warkaas wax ka faafiyey, warkiyaa la ii sheegay tiri, anuguna waa xanuunsanaa markaas. markii warkii ay ii sheegtay fasdadtu maradan ilaa maradi, aniga xanuunkaygiyaaba xanuun iigu darsamay tiriba. warba ma aan ahaynay tiri ilaa hal bil ayaa reer madiina wax kale isla dhex marayaan. waa yaabay tiri, waa aan ooyey tiri habeenkii oo dhan ilaa aan waagu iga baryo, ayadoo ilintu aysan kala joogsan, hurdana aana indhaha isgelin, waxa layga faafiyaba aana warka hayn. intaa ka bacdi nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisi ayuu la tashaday. sayidina usama binu zayd ayuu nabigu la tashaday oo yihi ka waran. markaas ayuu yihi rasuulka ilaahay wax xumaana kuma ogin, ehelkaaga waa ehelkaagii. haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam sayidina cali binu abi aalib ayuu la tashaday. sayid cali marka asna wuxuu yihi rasuulka ilaahay o asagu qofba dhinacuu ka fiiriyey. sayid cali caaisha xumaan kuma tuhmin aslanba, laakiin wuxuu siduu hadalka ugu jawaabay nabigu waxa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaa rasuulallaahi lam yudayiqka allaahu cala annisaa, ilaahay maaragtay dumarka kuguma ciriiryin, dumarku waa badan yihiin. waxaa weydiisaa hu yihi gabadha oo guriga kuu joogta oo jaariyadda weydiyu yihi sayid cali. bariiro gabadha la yihahdo. markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam bariiro weydiy. marka sayid cali wax kale xumaana maba dhihinba, caaisha xumaan uma tirin, kaliya wuxuu yihi ilaahay dumarka kuguma ciriiriyin oo dumarku waa badan yihiin, laakiin gabadhaas weydii ayadaa wixii sax kuu sheegaysa. maxaa yeele caaisha ayadaa la joogta, ayadaa nooga aqoon badan oo guriga dumarka la joogta. caaisha inay beri tahana way cadaynaysaa. marka caaisha gabadhii bariiraheeda nabigu weydiiyey o yihi caaisha ka waran. markaas ayaa ila hadda waxyi ma soo degay, nabiguna waxyi wuxuu ku socdaa calayhi salaatu wasalaam. bariira waxay tiri caaisho anigu wax aan ku ceebeeyo kuma ogi sideedaba,
kaliya waxaan dhihi karahay tiri caaisha waa gabar yar habeenkii cajiinka iyo qooshka iyo canjeelada waxyaala loogu talagalay iyo muufihi iyo waxaas markii ay qasto ayay ka seexatahay tiri markaasaa waxarta guriga joogtahay ka cuntaahay tiri intaas haddaan ka sheega ma ogiyo wax kale oo ceeb ah oo caaisha leedahay ma jirto oo xumi ah. intaa ka bacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa ayuu tagay nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaas ayuu nabigu wuxuu yihi yaa macshara almuslimiin man yacdurunii min rajulin qad balaga adaahu fi ahli beyti. war muslimiinta jamaacadoodow yaa iga cududaaraya nin dhibkiisa uu gurigeyga igu soo gaaray ahlubeytkeyga iyo gurigeyga uu igu soo gaaray dhibkiisa gurigeyga igu yimid yaa iga qabanaya ninkaas. markaas nabigu wuxuu kaloo ku daray fawallaahi maa calimtu calaa ahli ilaa khayra. ilaahay baan ku dhaartaye aniga xaaskeyga waxaan khayr ahayn kuma ogi. walaqad dakaruu rajulan maa calimtu calayhi ilaa khayra. waxayna soo hadal qaadeen oo xumi ku tilmaameen nin aan khayr waxa ahayn aana ku ogeynin nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo safwaan bin almucadal. intaa kabacdi waxaa istaagay sacd bin mucaad radia allahu canhu ayaa istaagay. riwaayo kale waxay sheegeen usayd bin xudayr oo sacd bin mucaad ilma adeer ay ahaayeen. sacd bin mucaad wuxuu yihi ana acduruka minhu yaa rasuul allah. ilaahay rasuulkiisiiow anigaa kaaga cududaaraya anigaa kaa qabanaya ninkaas. in kaana min alawsi darabna cunuqa. haddii uu yahay aws qabiilka leedahay hadduu ka soo jeedo aniga qabiilkaygaa madaxaan ka jarayna kaas kow. wain kaana min alkhasraji amartanaa fafacalnaa amrak. haddii laakiin khasraj uu ka soo jeedo oo labada qabiiloo wada dhalata aws iyo khasraj waa wada ansaar labadooda la isku yidhaah hadduu walaalahan khasraj ka soo jeedana amar ayaana siinaysaa amarkaagaan samaynayna. markii sidaa uu yiri ayaa sacad bin cubaada yiri waa beentaa waxba kuma samayn kartid oo macnaha aws khasraj u difaaca xoogaa wax yaraa akici sacad bin cubaada. markaas ayaa dadkii hadalkii iskula buuqeen oo masjidkii xoogaa la isku dhaafsado hadalkii la isku adkeeyay luqadda. marka ayaa rasuulku aamusiyey calayhi salaatu wasalaam. intaa ka bacdi waxay tiri caaisha nabiga iisoo gala calayhi salaatu wasalaam ayadoo labadeydii waalid ag joogaan oo ayna malaynayaanba in ooyinta aan ooyaya beerka idilaaci doonto. markaas ka horna nabigu calayhi salaatu wasalaam intii hadalkan la yiriba ima imaanay tiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ima soo ag fariisan macnaha hal bil ayaana nabigu joogay tiriyo aan waxyi aniga arrimahayga ku saabsan uusan ku soo degin. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ag fariistay wuu khudbeeyey wuxuuna yidhi amaa bacdu yaa caaisha fainahu qad balaganii canki kada wakada fain kunti bari'atan fasayubri'uki illaah. intaas kadib wuxuu yidhi caaishay waxaa iga soo gaaray xaggaaga warkaas iyo warkaas haddii aad marka beri ka tahay ilaahay ayaa ku beri yeelayuu yiri. wain kunti almamti bidanbin fastakfir illaah watuubi ileyh. haddii dambi uu kaa dhacayna ilaahay u toobadkeenoo ka laabo. markaas kabacdi nabigu hadalkiisa markuu dhamaystay calayhi salaatu wasalaam ayaa ilintii iga joogsatay tiri caaisho oo hal dhibicna iguma harin waa ilintii dhama waa iga hakatay. markaas ayaan aabbahay waxaan ku eriyey tiri ajib canii rasuulallahi sal alla alayh wasalam. ilaahay rasuulkiisa iiga jawaab oo u hadal celi. markaas ayuu aabba yiri ma aqaan waxaan ku iraahdo. markaas ayaa hooyada waxaan ku eriyey tiri ajiibii canii. hooye xaggayga iga jawaabo rasuulka u jawaab. markaas ayay tiri wax aan iraahdo ma garanayo. caaisha markaas waxay tiri wallaahi laqad caraftu annakum qad samictum bihada xata istaqara fii nufuusikum wasadaqtum bih fain qultu lakum inii barii'a wallaahu yaclamu annii barii'a laa tusadiquunii fii dalik walain ictaraftu lakum biamr wallaahu yaclamu annii barii'a latusadiquunii. waxay tiri ilaahay baan ku dhaartay waxaan ogaaday tiri arrin ayaa laydiin sheegay war ayaa laydiin soo gudbiyey warkaas oo adinka naftiini ku sugnaadood aaminteen haddaan idiin sheego arrin oo aan idin idhaahdo beryan ah waxaa la sheegaa beryanka haddaan idin idhaahdo ilaahayna uu ogyahay inaan beri ka ahay
igama rumaysanaysaan ilaahayna waaba ogyahayba inaan beri ka ahay adinkuna igama rumaysanaysaan haddii aan idin idhaahdo arrintaas waa iga dhacdayna oo aan qirto ilaahayna waa ogyahay inaan beri ka ahay waa iga rumaysanaysaan oo waxaa leedihiin dembigaas way gasha caaisho markaasa waxay tiri inii wallaahi maa ajidu lii walakum mathala ilaa kamaa qaala abuu yuusuf fasabrun jamiilu wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wuxuu yihi sayidinaa yacquub oo nebi yuusuf aabihiisa sabar wanaagsan aan isku dayayaa kaliya ilaahayna waa ka nasahan yahay ilaahayna waa la kaalmaystaa ho waxa aad leedihiin ayaa kaalmo laga weydiistaa kabacdi waxay tiri caaisha waa iska wareegay gogashaydii aan tago iska seexday tiri waxay tiri inta aan rasuulku meeshiisa ka kicin qof gurigii joogana uusan meeshiisa ka kicin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa qabtay culayskii qaba jiray markii nabiga uu waxyi kusoo degayo sidii loo qaba jiray loo qabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu dhididku ka horo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin aada u qabow ayaa dhidid ka horay kabacdina waxyigii ayaa ilaahay kusoo dejiyey oo aniga la igu bari yeelayay oo aayadihii qur-aanka ah ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum kuwa la yimaadeen been abuurka waa jamaaco adin ka mid a intaasoo aayadood oo suuratu nuur ku jirta ayaa ilaahay ku difaacay oo uu caaisho ilaahay subxaanahu watacaala oga hadlay sida ay beri u tahay marka haddii qofku uu aamino caaisha inay zinaysatay waa gaaloobaya diintu ka baxaya shiicada ayaa faafiya caaisho waxun ka faafiya laakiin islaamku qofku ka bixina haddii qof uu yihaa caaisha waa zinaysatay diintu ka baxaya maxaa yeele intaasoo aayadood oo suuratu nuur ka mid a ilaahay ku beri yeela caaisho oo yihi waxaas beryi ka tahay marka qof kastow iimaankaaga u fakar caaisho oo zawjadii rasuulka oo nabigu jeclay calayhi salaatu wasalaam ee xaasaskiisa midda ugu jecel ha ahayd markii laga reebo khadiijo been ha ku tuhmin oo munaafiqiin ku tuhmeen oo ilaahay uu ka bari yeelay qur-aankiisa kariimka uu ku bari yeelay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyigii waa ka foqay waana uu qoslay kelimada ugu horeyduu yirina waxay ahayd abshirii yaa caaisha caaisha ay bishaarayso amaa wallaahi faqad bara'ak ama allah faqad bara'ak ilaahay waa ku bari yeelay markaas ayaa hooyaday tiri u istaag rasuulka oo ku shukri markaa tiri ilaahay ayaan ku shukrinayaa asagaa bari ahaashahayga soo dejiyey markaas aayadihii qur-aanka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu uga sii hadlay oo intaas uu kusii sharxay waqtiga ayaa naga dhammaaday caaisha waa beri ilaahay ayaa bari yeelay qofkii ku tuhmana diinta islaamka uu uga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh